السلام عليكم دمان أصحابكم حلين سوم شو channel كوسو دبادة فيديو عصب فيديو جل ما أنتم حنك هالنا جوجل أدسنس ضد بدن أو حاجرو أو جوجل أدسنس وح ويه فانسن إن أما يوتيوب له أما وحيله ويب سايت لكن أو إلا هذا أو أن فانسن verification كا أوكي أنت أنا نقول قدين يعني موضوعنا فضلا هدي أتخف صوب channel كفضلا صار سبسكرايب ويو يوتيوب كان وحنك هذا لنا waxyaabo la xiriira sida online lacag loogu sameeyo iyo waxyaabo badan okay in sida aad ogtahay Google AdSense hadii oo aadan aqoonin waxa maamula Google in waxa waaye waa xayisiin oo ay Google oo ay ku soo bandhigayso website-kaaga ama YouTube channel-kaaga tusaale markii oo aad waxa laga yaabaa in aad fahansan tahay laakiin dadka qaar ma fahansana macnaha Google AdSense markii oo aad YouTube oo aad buuxisid shuruudaha tusaale waxaad heshay 1000 subscribe iyo waxaad heshay 4000 watching hours sanadkii hore ama sanadkii la soo dhaafay ama waxaad leedahay kasoo qabo website-kaaga marka waxa dad badan ayaa soo booqda marka waxaad rabtaa in aad lacag ka samaysid marka waxa ku waajiba in aad isdiiwaangelisid AdSense si ay Google oo ay lacag ku siiso oo aad meeshaas oo aad kaga faa'iideed okay marabo in aan ka hadlo sida la isugu diiwaan geliyo waa iska easy Google waxaad ku qoraysaa Google AdSense kadibna waxaad isku diiwaan gelinaysaa email cusub hadii aad leedahay account badan ama Gmail badan oo markaas oo uu kaaga furan yahay Google AdSense fadlan iska wada xir kaliya qalki qaf waa inuu lahaada hal account saas oo la soco hadii aad leedahay laba account kuma ogolaanayo in markii aad isdiiwaan gelisid kadib waxa waaye maadaama oo aan ahay Soomaali aniga xataa waan ku wareer dhowr muddo ilaa iyo waxa iga qaatay 2 bil oo kale oo aan fahmi waayay meesha laga heesto okay waxa waaye anaga hadii aan ahay Soomaali magaca dalkeena maartay dalkeena Google AdSense ma taageero soo marka lagu maxali karo marka xitaa hadii aad joogtid Soomaaliya waad ku xiran kartaa adigoo joogo Soomaaliya laakiinse waajib maaha qof in macnaha dibad laga soo furo waajib maaha laakiin waxa waajib ah qof dibad joogo in uu account-kiisa in uu magaciisa iyo account-kiisa uu ku furo taas ayaa waajib ah okay sida hadda Premier Bank oo kale macquul maaha passport-ka magaciisa macquul maaha marka waxaad sameynaysaa marka hore waxaad bedelaysaa Google AdSense-gaaga magaca hadii uu yahay magacaas waa inaad bedeshaa waa inaad ka dhigtaa qof dibadda joogo ama Kenya ahaato ama laakiin badana wadamadan Asia sida hadda anigoo kale waxaan joogaa Bangladesh marka qof oo aan saaxiibnahay oo Bengali account-kiisa ayaan ku furtay marka qof dibadda joogo waa inaad heshaa account waa inaad heshaa magaciisa iyo passport-kiisa ama national ID waxa loo ayaa jiro marka ha ku wareerin passport-ka Soomaaliya inaad gelisid magaciisana ma geli kartid xitaa account-ka magaca macna caadi markii oo macna account aad leedahay create account marka leedahay xitaa magacaaga ha gelinay magaciisa geli fahanti shuruudaha waxaad ku buuxinaysaa adigoo dalka joogo ama hadii aad rabin qof dibadda joogo ayaa ku buuxinaa laakiinse kuma xirna qofka oo ku buuxinaa inuu dibadda joogo adigoo Soomaali joogo waad buuxin kartaa laakiin data ay gelinayso waa inuu hada qof dibadda joogo waad fahantay ayaan filaa marka hore sida halkan u jeedeen waxaan geliyay magaca ayaan geliyay magacii waa tiri everything maarti waa tiri information oo macna wiilkan oo aan saaxiibnahay ayaan geliyay si aan u verify gareeyo sida halkan oo aad u jeedaan okay marka xigta si aad shuruudaha oo aad u buuxisid waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa meesha score oo ay ku qoran tahay verify now markii aad u dhufid verify now kadib waxa sameynaysaa okaadi xogo khadka ayaa xogo igu xun kadib waxaad halkaas aad click checkas ay saaraysaa kadibna waxaad soo diraysaa documentiga wuxuu noqon karaa passport wuxuu noqon karaa national ID wuxuu noqon karaa maartay wax walba markaas oo inta oo shuruudaha oo markaas meeshaas ku qoran waxa leedahay upload marka lahayd upload PDF ahaan u bedel okay ani hadda waa diyaari waa kan magaca PDF-ka then kadib waxa leedahay next
een markii aan next aad kadib waxa waaye xoogo yaran hada khadka xoogo iga xun kadib waxaan buuxiyey siduu uu qoran yahay national ID-giisa macnaa ayaan waxaan ku buuxiyey street addresska iyo cityga iyo post code iyo kulli waxa waaye waa inuu ahaadaa sida saxda oo uu ku qoran yahay national ID-ga ama passportka marka waa inaad isku hubisaa midaas haddii kale waxa waaye google uu kugu soo celinayaa haddii uu kaa diiday mar ama mar labaad ku celi ma fahanti waxa waaye ama haddii uu kaa diido waa inaad badisaa postiga then marka waxa waaye halkan waxay leeyihiin godid marka waxay qaadanaysaa ay dhaheen few days ayay qaadanaysaa sidaad halkan ujeedaan saacado kadib ilaa iyo waxaan sugay ilaa iyo 8 saac oo kale waxay soo dhacay emailkan oo ah identity verification successful marka saacadda ku aragteen hadday saacadda wuxuu ahaa iyo maaragtay haddana saacadda maaragtay inta emails adiga waxay u qaadatay adiga saacado yar oo kooban ma fahantay dan intaas waxaa si dheer google kuma soo diraya paymentiga kuma soo diraya sidaad halkan u jeedaan google wuxuu isoo diray email kale emailkaas oo uu leeyahay waxaa jiro pin code ayaa jiro pin codekaas wuxuu kugu soo gaaraa 2 isbuuc ilaa iyo 3 isbuuc gudaheed ayuu kugu soo gaarayaa marka pinkaas wuxuu kusoo dirayaan waxa waaye waa 4 code waaye wuxuu kusoo dirayaan emailkaaga sidaad halkan u jeedid computerka marka pinkaas ay kusoo diraan oo aad gelisid dan kadib waxa waaye paymentiga waa lagu hodinaa lacagtaada minimum waxa waaye $100 haddii uu gaaro $100 lacagtaada waad la bixi kartaa waa intaas haddana haddii oo wax su'aal oo aad qabtaan fadlan kusoo biira telegramka waxa la wixii su'aal meesha igu weydiiya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.